maayarka degmada Laascaanood Cismaan Salabaan Jaamac weeliyaan qaar ka mid ah xildhibaanadiisa golaha deegaanka ayaa saaka soo indheeyay riig laga qodayo dooxada Tifafle oo dhanka waqooyi bari 10 kiiloomitir kaga beegan magaalada Laascaanood xilli ismaandhaaf ka dhex dhashay ciidamada qaranka iyo dadka shacabka ee dooxadaasi deganaa markii maayarka iyo waftigiisu gaareen deegaankaasi waxa warbixin ka siiyay xaaladda guud ee deegaankaasi qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada militariga Soomaaliland oo halkaasi ku sugnaa gudoomiye markaan ka warramo xaaladdan deegaankan yaalla waa darkiisu wanaga biyo soo dhaamanay qaabka salaadii baan la shaqay waxaynu xog dhaba nagu siiyeen dad Laascaanood jooga inay hawsha geliyeen hadda ka ay fahamsan yihiin waxaan in iyaga loo qabanayo ammaanku waa nabadgelyo wadarka saafku waa shaqaynayaa duqa degmada Laascaanood iyo xildhibaanada golaha deegaanka oo si wada jira saxaafadda ula hadlay ayaa soo dhaweeyay horumarkan mashruuca sanduuqa horumarinta Soomaaliland ka wada gobolka Sool kaas oo wax badan lagaga qabanayo dhinacyada caafimaadka waxbarashada iyo biyaha waxayna intaasi ku dareen in aan waqtiga loo baahnayn in arintaasi la soo taago riigan waxa iska leh degmada Laascaanood shakhsiyaad gaar ah male beero lagu samaysan maayo mashaariic lagu xiran maayo wasaaradda khayraadka biyaha ee Soomaaliland baa hawsha wada laga hirgelinayaa Tifafle waxay ka mid tahay mashaariicdii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku ballan qaaday Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa fulinaya wasaaradda biyaha waxaan rajaynaynaa in biyahan ay ka faa'iideysan doonaan dadka horeey mudnaanta la siinay dadka deegaanka tahay baahida biyaha ee deegaanka ka jirta haday tahay kuwa tuulooyinka iyo kuwa xoolo dhaqatay kuwa magaaladuba ay ka qabeeli doonaan waxaan leeyahay qodobka ah in meeshan beer laga dhiganayo oo dadka qaar aaminsan yihiin waxaan leeyahay waxyaalaha ku turkuteenta ee ruumarka yaan la qaadanin ma jirto magaalo aan biyo lahayn ilaa magaaladeena mooyaane maanta ilaahay noo keenay inaynu ku mahadinayahay inaynu isbarbar taagnayahay inaynu maanta siyaabo kale u fikirno ma ayan hayn runtii Laascaanood waa ogtii maanta soo ogtahay iskuulkii waa la wadaa boardingka ahaa waa la wadaa dhakhtarkii caafimaadkii wadooyinkii waa la dhisay ceelkii biyaha oo aynu boqolaal sano doonaynayna waa tan qodiya maanta waxaan nasiib darraa in la fahmi waayo wax qabadka iyo codsiga madaxweynuhu ballan qaaday inuu fuliyo oo uu fuliyay intuu xilka hayay in la yahay maanta dad si kale u arkaan oo is hortaagaan horumarka waxaan uga digaynaa cid kastoo horumarka is hortaagtaa tallaaba laga qaadaya cid horumarka is hortaagtaa sidaynu ognahay halkan mudda dad wax lagu soo shubay si kale loo galiyay iyagoo ku dhawdo inay la khalday way og yihiin maanta waayo ceelkan halkan laga qodayaa Laascaanood baa loo qodayaa deegaanka loo qodayaa cid dan gaar ah iyo qof gaar oo wataana ma jiro codsigii madaxweynuhu laga codsaday uu fuliyay weeyii ee uu yiri ballan qaaday inuu biyo u soo saari doono Laascaanood biyo macaan deegaankana yimi lama dhulayn karo lama deegaanayn karo beer laga ma qodi karo oo xoolo daaqeen ceelka biyaha wax lagu soo kordhin kara ma jiro waxaan leeyahay wax la soo dhaweeyo wax qabadka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda waana arrimahaaynu waliganba wasiirka biyaha inuu lahaan jiray meel kasta inuu joogno maanta inaga horeyso biyaha inuu helno maanta inaga horeysa caafimaadkana waa ka caban jiray labadaba maanta inaa gacanta ku hayna wasiirka caafimaadka iyo wasiirka biyaha iyo kii amniga maanta inoo raxay arrimaha gudaha warmarka haddii biyihii laga cabanayay wasiirkeeda aynu haysano oo biyihii maanta laynoo soo saaray caafimaadkiina wasiirkii madaxweynuhu la siiyey oo caafimaadkii uu wado ammaankiina inaga laynoo dhiibo wasiirka arrimaha gudaha aynu hayno bal maxaa maanta la diidan yahay oo biyaha la soo hortaagayaa maantana gabagabadina maayarka degmada Laascaanood ayaa dhagax dhigay taangi biyada laga soo jiidayo riiga dooxada Tifafle kaasoo yeelanaysa tuulada Canjiid oo la il daran waqtigani biyo la'aan baahsan Trouble S Bulsha TV Laascaanood